Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa inoo socday cilaaj aljaniinu raaqid fii batni ummihi. Waxaa inoo socday ilmaha caloosha ku dhex hurda hooyada ayaa socday. Markaa xalqadii saddexaad weeyaan. Waxaan rabaa insha allah waxa weeyaan ciyaal waxaa jira saa idiin sheegay markii horeba ilmaha uu ku dhex seexdo hooyada. Khaasatan waxaan kaloon maqlay gabadh 2 sanadood waxa weeyaan iyadna huruday saasoo kale ku dhex huruday oo waxa weeyaan ilmaha uu soo daadaadanayay markii dambana way dhalatay alxamdulillaah rabbil caalamiin. Arrinkaasina waa jiraa oo waxa weeyaan ilmaha oo ku dhex seexda hooyada waxaana kicinaya amba hurdada ka kicinaya waxyaalihii aan soo sheegay ee hore. Markaa faa'iidooyin badan ayay leeyihiin intii ay idiin soo sheego oo dhan. Maanta waxaan rabaa inaan insha allah idiin sheego 3 shay ayaa isaguna faa'iido u leh. 3 shay waxaad qaadanaysaa kamuun amba khamuun iyo shajaratal maryam oo la yiraahdo shajaratal maryam kafal maryam. Geedkaasi waa geedka meesha ku sawiran waxa weeyaan waa geedkii Maryam binti Cimraan ay hoos fadhiday oo waxa weeyaan marka ay dhalaysay Nabi Ciise. Faa'iido badan buu leeyahay insha allah. Wadan ayuu ka soo baxaa khaasatan masaarida ayuu ka baxaa. Marka waxa weeyaan geedkaasi aad buu u fiican yahay dumarka uur kalena u fiican yahay laakiin insha allah waan ka sheekeyn doonaa. Laakiin maanta waxa aan kaga hadlayaa ilmaha caloosha ku dhex hurda ayaa faa'iido u leeyahay ayaan ka hadlayaa. Waxa kale oo faa'iido leeyahay jinka iyo shaydaankana faa'iido u leeyahay insha allah markooniyaan ka hadli doonaa. Marka maanta waxaan rabaa in la isleekeysiiyo kamuunta iyo kafal maryam geedkaasi iyo fiishal geed la yiraahdo. Waa inaa mutasaawi aad ka dhigtaa 3 geed. 3 geedi fiishal waxa weeyaan magac kale u leeyahay shitaab baa Soomaali lagu bedelay carabiga asidaab weeyaan laakiin Soomaali waxa tirahdaa shitaab ayay yiraahdaan. Waa geed aad u wanaagsan. Waxaad qaadaysaa kamuunta iyo geedka meesha ku sawiran ee kafa maryam amba shajaratal maryam ayaad qaadaysaa iyo shidaabka waad karinaysaa. Markaad 3 isku dartid ood in yar ka qaadatid la iskuma badinayo mid walba in yar ayaad ka qaadanaysaa. Marka aad ka qaadatid waa in isleeg inay noqdaan kamuunta iyo maxaa la yiraahdaa shajaratal maryam iyo shidaabka. 3 shay waa inay isleekaadaan. Marka isleekaadaan waxaad ku ridaysaa distigaad ku ridaysaa waad karinaysaa. Marka aad karisid waad cabaysaa. Marka ay kululaadaan isku dhex karsamaan waxa weeyaan 3 cisho ayaad cabaysaa. Maalin 3 cisho ayaad cabaysaa waxa weeyaan koob ayaad cabaysaa 3 cisho. 3 cisho ayaad cabaysaa koobka. Markaas ku dhex karisid ayaad cabaysaa 3 cisho oo isku xigta. Marka insha allah ha laga faa'iideysto. Intii horena waa inoo soo sheegay 3 nooc ayuu kala baxayahay in beedka la sameynayay in quraankii lagu sameeyay warqada lagu qorayay iyo beedkii ayaa xalqadii 3aad weeyaan maanta insha allah. Kamuunta iyo geedka kafal maryam iyo shitaabka waa wax isleeg intaan ka dhigno oo mutasaawiya qayb walba wax isleeg aan ka qaadno. Matalan geedka waxaan ka goosan karnaa 2 dhinac yar baan ka goosanaa 2 yar oo qori oo yar oo halka hore aan ka goosan karnaa. Shidaabka in yar baan ka goosan karnaa 2 qori baan ka goosan karnaa afkeer hore ah. Kamuuntana waa ineen oo kale insha allah. Kamuunta waan tusi doonaa insha allah. Kamuunta kulay dadku yaqaanaan oo cuntooyinka lagu darsadaa. Waad qaadaysaa waa inay isleekaadaan 3 shay. 3 shay markay isleekaadaan waad karinaysaa. Marka aad karisid waxa weeyaan waad cabaysaa. Marka ay kululaadaan waxa weeyaan waad cabaysaa 3 cisho ayaad cabaysaa insha allah. Waxa soo kacaya oo waxa weeyaan yafiiq oo taxarrag oo dhaqaaqaya ilmihii caloosha ku jiray uu dhaqaaqaya uu nasara kacaya. Marka waxa weeyaan aanu sameeyno taladana Ilaahay aanu dhiibano. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala taladana aanu saarano waxa weeyaan
ana niyadda waxa ilaahay subxaana wataala niyaddu eega waa inaan ku talagalnaa inay waxaani soconayso siduu ilaahay subxaana watacaalana uu maxaa la yidhahdaa inoogu fududeeyo. marka waxa weeyaan kulley waad aragteen goorta hore waxaan ka sheekeeyey warqadii sida loogu riday gabadha uurka leh inay cabto biyahaasi. iminkana waxa weeyaan 3 shay markaas ku karisid biyaha kulul waxa weeyaan ay kululaadaan 3 cisho ayaad cabisaa. 3 cisho faa'iidada waad eegaysaa insha Allah. ilmaha waa sare kacaya, hurdadu ka kacaya, uu dhaqaaqaya, xarakaad buu sameynaya, waa dawaalmo iska nool oo maasha Allah. marka ha laga faa'iideyso fursada qaaliga. aad baan idin salaamayaa dhammaantiin. waxaan idinka codsanayaa insha Allah subscribe-ka idinka codsanayaa iyo like iyo comment qurux badan insha Allah. waana xalqadii 3aad wayna dhamaatay insha Allah. waxaan ka hadli doonaa faa'iidada uu leeyahay uurka maxaa la yiraahdaa shajaratul maryam faa'iidada uu leedahay uurka ayaan ka hadli doonaa insha Allah. iminka laakiin ilmaha caloosha ku dhex hurdo faa'iidada uu leedahay ayaan ka hadlayay. marka ha laga faa'iideysto 3 shay weeyaan. 3 shayna waa inaad isku dheelitirsanaadaan dhammaan insha Allah. wax isleeg aad isku karisaa. aad baan idin salaamayaa dhammaantiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.